أنا قرانك ولا يجرب كلا لا كلا ربا على شيء لا يجرب كلا على يجرب شرعي أيه أقول لنا كسماء هذا شرعي أيه أقول لنا بطلان هذا شرعي أيه أقول لنا هذا ملكس أو صوماليا وحرب عن صعده قرابة سلنا عن صعده سياسة عن صعده إسلام أري الرئيس هدي وعده يترأي ما نقول عنا وتيكر رواني وحرب حقوق لا سقف كستو صوماليا ولا هكر دولة أفر إلى 20 ساعة ولا صور ضعفي وحن كسوجينا إن كجرابان خلط كذا محيا خلط كأني قال لي قالي وخلط قف كستو مواطن الصومالي لا قالي كرون كمقالة مقدش waxaan u maleynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markii maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dawladii ku meel gaarka ah aan hogaaminayay waxay ku guuleystay ugu yaraan terminalka inuu noqdo meel laga soo degi karo karoonka intaas iga soo gashay hadii aniga la ogolaa waayo cid loo ogolaa kara bal ii sheega waa su'aal oo maxaan u socdaa aniga waxaan u socdaa Kismaayo dawladda waxay yeelan kartaa inay tiraahdo waxaan ka qabnaa anaga raali naga ahaaw waxaas sameeyay waxaan rabaa noqdo muhiim ah inaan u gudbo ma ogtihiin horta dawladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dawladda iyo muwaadiniintu sharciga waa u siman yihiin sharci dawladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay Kismaayo inaan aado Kismaayo meel gaar ah oo Soomaaliya hadduu ii ogol yahay dawladana waa ogol yahay garoonkaas hadii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi kara way fahmaanto malina hadduu sharciga ii diida asagana waa u diida macnaheedu waxaan rabaa inaan fahmo waxa la isku haya waa sharciye 4 sano madaxweynaha kama hadlayna adana waa ogolna laakiin maxuu sameeynaa madaxweynaha dawladdiisa maxay ka shaqeynayaan waxay ka shaqeynayaan waxa sharcigu ogol yahay haddii ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dawladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku og yahay adag oo dawladnimada Soomaaliya bees u noqda ma jiraan oo ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan bal fiiri wartan fiiri hadday naqato ana lay doortay oo waxaan rabaan sameynaya waxay furaysaa khad aan wanaagsaneyn dawladda marka waxaan rabaa inay ka jooga meesha ku socotiin sharciga hareer maraysan ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo hotelkan aan iga fogeyn degan madaxtooyo lagu wareejiyay ma soo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog ma loogu wareejiyay xasan sheekh isla hotelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharciga qofkii lagu doortay hadduu ixtiraami waad ixtiraamayso horta ma la arkaa danna Soomaaliya ugu ma jirto hadday marka dawladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis hadday sharciga burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo annaga waxaan u dagaalameynay oo u tanaasulaynay waxay ahayd dawladnimada Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oo san jirin waxa dhala kara waa gar karti annaga ma rabno inta aan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dawladnimadana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaan inay inta isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ah leys waxaan arkaa dawladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa u diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxaa yeelay sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan waa baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooda aadayaan dadka aan meelay aadaan lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u maleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga cadaado dawladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dawladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo asoo boorsidiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale
annaga dalka waxbaa naga galay mana ogol inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina ha isu timaado mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu